السلام عليكم غير قبيلي aad baan idin salaamayaa caawiya caalamka ayaan idin leeyahay dhamaantiin maanta gabiile aad baan loogu soo dhaweeyay maayarka iyo xubnaha golaha deegaankaba waan u mahad celinayaa iyo madaxda kale ee sharafta leh wasiirada iyo xildhibaanada iyo ganacsatada bale aniga sida safiirka iguma horreeynin gabiile markii ugu horeysay meehi anigu waan iiman jiray marka kulli safiirka waan ka yara duwanahay haddaan buugga u soo noqdo farxaan waan hambalyeynaya buug loo baahnaa oo tacliinta ka hadlaya anigu kulli tacliinta aqoon uma lehin laakiin caruur baan dhalay oo kulli qof kastoo caruur dhalayba tacliinta uu og yahay in ay isku xidhnaadaan ba wanaagsan macallinka iyo waalidku gaar ahaanna wadamada qurbaha oo kale caruurta dhibaato weyn baa ka jirta sida ay caruurta u korayso hooyooyinkana aad baan u hambalyeynayaa meel walba hooyada ayaa caruurtii daba socota marka haddaanu aabbayaasha nahayna kolle waxaan ugu baaqayaa in aynu tacliinta caruurteenna hoos u eegno oo aynu macallimiinta la shaqayno waayo ilmahaga aakhire lagu weydiinayaa ifkana dee ilmahaagu hadduu soo hagaago wax weyn bay noqonaysaa marka waxaan leeyahay waalidiintu gaar ahaan aabbayaashu kor ha isu qaadaan